soo dhawaada hoyga maansada Soomaaliyeed. waa dulla qabyaaladu waa furqiya daacuun waa cadow difaaciyo dugsi aad ka dhigato ka dooxa maatada waa nacab dadnimada iyo sharafta kala diriro ummadaada kugu dira gabaygu ummadda Soomaaliyeed muhiimad weyn ayuu u leeyahay weliba waqti waxa jiray haddii alla ku roon yahay waxa kaliya oo xataa war isgaarsiinta ay u isticmaasho oo ay wax isugu sheegto oo ay wax isku gaarsiido oo gabayga kaliya ahay oo haddii alla ku roon yahay ummad kala fog oo dhul kala fog joogta ay isku hadli jireen gabayga oo fariimaha isugu diri jireen oo ay wax isugu sheegi jireen marka inkastoo hadda adduunyada hal guri ay noqotay waqtiyadii hore gabaygu wuxuu lahay muhiimad mid hadda jirta aad uga weyn maadaama war isgaarsiinta kaliya iyo warbaahinta kaliya ee dadku ay wax isugu sheegaanba ay ahaa jirtay haddii alla ku rasuugaanta Soomaalida marka muhiimad weyn uu leeyahay gabaygu waa waxa ummadda haddii alla ku roon lagu waaniyo lagu dajiyo wax loogu sheego waxna ay ku qaataan inta badan suugaantu waaba saxayda afka Soomaaliga ayay saxay u tahay sababtoo ah afka Soomaaliga nuxurkiisa iyo sixintiisa iyo erayadiisa rasmiga ah waxa xambaarsan waa suugaanta Soomaalida marka sahay waxa la yiraahdaa alla ku roon yahay qofku markuu safar galo waxa uu qaadanayo oo ku noolaalahay inta uu safarka ku jiro sibraarna waxa la yiraahdaa waagii hore wixii sayda lagu qaadan jiray weelkii sayda lagu qaadan jiray marka suugaantu waa dhaqan waana sahay iyo sibraar afka Soomaaliga oo leeyahay gabaygu nabadda qiimo weyn ayuu ka qaadan karaa sababtoo ah wax kasta oo colaadda qayb ka qaadan karaa waxay ka qaadan karaan nabadana qaybay ka qaadan karaan haddaad og tahay taariikhda Soomaalida marka dib loo fiiriyo colaadaha ugu badan ee dhacay waxyaabaha lagu huriyay waxa kamid ah gabayga marka haddii colaad lagu hori karo marka waxay ku cadeynaysaa in nabadana haddii alla ku roon yahay oo wax weyn ka qaban karo marka weliba xilliyada xataa Soomaaliya dagaaladii sokeeye la soo dhaaf waxa haddii alla ku roon yahay dejintiisa qayb weyn ka qaatay gabayada kamid ahaayeen anigu golaha abwaanada la yiraahdo golal la yiraahdo aan kamid ahay dagaalka 4 bilood la yiraahdo ayaan labadii dhinacoo dagaalamayay inta dhexdooda makaroofana dhiganay oo ka istaagnay ayaan dhahnay joojiya ma aqbali karnay marka labadii dhinac midkoodna xabad nuguma soo ridin marka waxaan isleeyahay gabaygu wax weyn oo nabadda ka qaadan karaa waxa kamid ah gabaygii Allah naxariista Cabdullaahi Suldaan Tiba Cadde oo uu leeyahay dugsi mala qabyaaladi waxay dumisay mooyaan gabaygaas qabaa'ilka Soomaalida ee dagaalami jiray ayuu wuxuu ku baray qabyaalada faa'iido daradeeda iyo inaan waxba laga gaarin iyo inta haddii alla ku roon yahay 20 jir nooga maqan oo haddii alla ku sabab uu ku dhintaa aan loogeyn wax faa'iidana aan laga helin marka ilaa berigaas iyo haddii alla waqtiga ka horeeyay ilaa haddaba waa socda marka waxa la yiraahdaa waa dulla qabyaaladu waa furqiya daacuun waa cadow difaaciyo dugsi aad ka dhigato ka dooxa maatada waa nacab dadnimada iyo sharafta kala diriro ummadaada kugu dira ruuxan dakana iyo dambi adiga ka gal soo dil kugu yiraahd waa kaan kara duqoodiyo jahli deegta loo suran waa durbaan ibliis oo daacada u tahay oo aad ka daba hablaysaa ummaday la darisana nabadda waa u diidaa dameerka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa marka haddii alla ku roon yahay colaadda iyo balaayada haddaan laga harin intaasoo dhibaataan ka kala kulmayna ummadda la darisana nabadda waa u diidaa dameerka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa aakhirana dabnaariyo jahannam ay ku dalaqsan
haddii aad abwaan tahay haddii aad abwaan tahay abkii waanada ta erayga abwaan waxa uu ka kooban yahay laba eray oo la isu geeyey oo ah ab iyo waano ab waa odayaasha aan ka soo farcannay ama haddii alla kuro awoowe ab marka waanana waa waano marka ab iyo waano ka kooban yahay marka haddii aad abwaan tahay abkii waanada ta oday lagu huritaa ta abwaanka marka dawladnimada iyo dhisidda iyo haddii alla isku keenidda ummadda iyo midaynta ummadda wax kaalin weyn uu ku leeyahay abwaanada Soomaaliyeedna dawladnimada iyo haddii alla ku ruuya xorriyadda iyo in dawlad wanaagsan la helo kaalin fiican ay ka soo qaateen tusaalaha ugu wanaagsan markaa soo qaato abwaan Soomaaliyeed oo waanadiisa aad leedahay waxay dhaaftay male haddaan afar eray ka soo qaato wuxuu yidhi naftu doqonsana damac waalana waxay doonto beri ku diriri oga dantu ka adaga durba celin oga labada isdardaray dadka dhibi oga risaqeeba ku diiday ka durugsana nimow dunya siinaayo deeqo u dhowa taa waxa daliil u ah haadka samada duuliyo diinku waa usman calaf midna ceesha daayacan oo daal u soo marin kama helo daleeda siday diintu lagu tiri dayaxana ha dhaafee qayrka darajadu helay rabbi kaama daahine dadaal gaari doontid marka dawladnimada adduunka ka jirta oo haddii alla kuro qayrkeen ay ku dhaqmayaan Soomaaliya dadaal gaari doontid aan leenahay anagoo soo qaadanayna xabadaas malaysa inay afkii Soomaaliga haddii alla kuro nuxurkiisa uu ka soo lumayo marka haddii ummadda afku ka lumana suugaantoodu waa lumaysa waxaad u qabtaa inay dhaqamo kala qaateen oo berigii hore xataa suugaanta iyo gabayada iyo heesaha iyo nuxuray lahaa jireen hadda waxaad u qabtaa muusiga keliya inay tahay muhiimadda wax la siiyey oo qoobka cayaar xoogga la saaray oo aan murtidii iyo midna aan la dhuuxin marka waxaa lagu soo noolay karaa aan aaminsanahay in la qabto tartamo lagu tartamayo suugaantii Soomaalida iyo gabayadii Soomaalida lagu tartamayo in la qabto haddii tartamada la sameeyo oo ummaddu ay ku tartanto hidaheedii iyo dhaqankeedii iyo suugaanteedii waxaan isleeyahay waa la soo noolay karaa dawladda iyo hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya horumarinta dhaqanka iyo nabadda waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed in dhaqankeeda iyo haddii alla ku roon yahay suugaanteeda lagu dadaalo in la soo nooleeyo marba haddii gabayada Soomaalida la soo nooleeyo oo xoogga la saaro waxaan isleeyahay horumarintii iyo dhaqankii iyo nabaddii intaba awood ay yeelanaya marka in suugaantii Soomaalida oo weliba suugaanta nabadda iyo sukaanka ummadda iyo horumarinta dawladnimo iyo haddii alla dawlad wanaagga looga hadlay in xoogga la saaro midaasaan aad uga talinayaa abwaanada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maahirada abwaane macbuud hibada siiye suugaanta mariyo waxay maanta joogtaa yaa maali jiray marka suugaantiyaaba yaa maali jiray joogta maanta ku soo dhawaada hoyga maansada Soomaaliyeed